نور الله فجرا جئت بعد. Today, we teachers, parents, and students have gathered here to express our grievance against the Ansar International, and we call on German government to lift the ban imposed by Ansar International on orphans such as the poor and supports IDPs and the blind. This could be due to the fact that the pressure is too small, lack of education for orphans and poor children due to lack of education in Somali children. So we hope from German government to free Ansar International and lead to do its activity which supports in around the world. So we hope to free Ansar International. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waxaan rabnaa maanta anigoo ku hadlaya magaca macallimiinta iskuulka Anwar inaan halkaan dareenkeena aan ka muujino aan ku muujinayno culeysyada ku wajahan hay'adan ardada halkaan meeshan wax lagu baraayo waxay isugu jiraan dad agoon ah dad aanan tabar u haynin inay iska bixiyaan takaaliifta waxbarashada sida ay dawladda adduunka ay ka warhayaan qof kasto oo adduunyadan jooga og yahay wadankan annaga wuxuu burbur ku jiray muddo 30 sanadood ah kaasoo dhibaato badan oo wadanku u geystay taasoo saamaxaynin in dad badan oo kamid ah community-ga wadankan inay maareeyaan waxyaabaha basic ah qofka baahiyada u baahan yahay oo ay kamid tahay waxbarashadii qofka muslimka haduusan waxbaran oo Soomaaliga ahna dhibaato badan ayuu wadanku ku yahay tusaale qofka hadii waxbarashadii uu waday arqalada iyo waxaasi uu kala kulmo waxa dhici karta qofkii in uu noqdo qof waxbarashadii in noloshii uu ka dhacay marka insha Allah ta'ala waxaan rabnaa markasta aan ka codsanayna dawladda Jarmalka inay dadkan masaakiinta ah dadaaladii loo waday waxbarashadoodii iyo kaalmeyntoodii ahayd in insha Allah ta'ala codsigaasi ay noo fuliyaan oo ay u fududeeyaan insha Allah ta'ala culeysadaasna laga qaado maxaa yeelay wax la caawinayo maanta waa dad muslimiina oo Soomaali ah oo masaakiina oo wax laga caabinayo ay tahay wax ugu muhiimsan oo qofka in noloshiisa laga saaro jahligii oo mugdigii ahaan loona saaro waxbarashadii maanta hadii dadkan xaaladooda meeshan looga tago wax laga yaabaa qaarkood inay nolosha saas ay ugu dhacaan waxbarashadii in badan oo iyaga kamid ah iyo badankooda ma awoodaan inay waxbarashada ay dhameystirtaan duruufo wadanka ka jira awgeed marka waxaan maxallahay weyn oo ku codsanaynaa markasta iyadoo la fiirinayo bini'aadanimada in insha Allah ta'ala dadka masaakiinta ah يعني wax mar walba laga shaqeeyo waxa qofka muslimka ah oo Soomaaliga ah yani noloshiisa waxyaabo uu ku hormarin lahaa marka waxaan codsanaynaa mar kasta in maxallahay dadkan arintoodii sida u kala socon lahayd maadaama 9 sano waxbarashadan loo soo waday hadda in qabiil looga tago kisto arin waxay noqonaysaa aad iyo aad u fool xun qof inta soo juhdiya lagu soo bixinayo ilaa iyo 2012 hay'adan ay jirtaa oo dadka masaakiinta ay caawinaysay hadii maanta mar qaarkood sideedaad way qaar sanadkan hadda noo ah form 4 oo ka baxaya dugsiga sare oo gudbaya heer jaamacadeed qaar toddobaad marka heerarkaas kala duwan waxbarashada hadii meesha maanta loogu istaago culeysyo badan ayaa soo wajahaya effectigeedana hadda wuxuu dib ugu soo laabanaya Somali community marka waxaan ku codsanayaa dawladda Jarmalka insha Allah ta'ala in arintani ay noo fududeyso insha Allah ta'ala hay'adaasna insha Allah ta'ala arinteedii ay u fududeyso si ummadda masaakiinta loo caawiyo aad ayaa u salaamaya dhammaan bahda reer Jarmal insha Allah assalamu alaykum assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa aniga Xabiib Maxamed Xasan arday iskoolkan ay dhigato Al-Anwar markan ilmaha waa agoon qaybna agoon weeye markan ilmahan dugsi iskoolkan ay dhigtaan maanta ardayda Soomaali hadda iskoolkan wax u qaban jiray oo dad masaakiin ah dhigtaan hadda ardaydii maanta wax loo qaban waay bari kamaal waxay naqanay casay inay aadaan inay dawrsadaan ay aadaan markan Soomaalinahay burbur iyo halaag ogolaam nagu dhacay qaarna baday ku dhamaadeen marka waxaan ka codsanayaa dawladda Jarmalka culeyska hadda oo soo saartay iskoolkan dad masaakiin ah wax loo qabanay ana kamid ah oo hadlaaya ilmo yar yar agoon ay dhigtaan waxna uma awoodi meel wax ugu keenayna ma lahan ardaydan marka macallimiintan qaar Allah siiyo iyo qofka wax soo dhiibi jiray culeyska saaran in laga qaado aan jeclahay dawladdaas oo maxaa la dhahay oo Jarmalka culeyska inay dad ka qaadaan aan jeclahay codsigayga saas waaye warkayga la soo kooyo assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hay'adda dawladda Jarmalka waxaan ka codsanaynaa inay xayiraad ugu hayso insha Allah ilaa idinkiisa anaga qaado qofka meesha maamulka meesha noo joogana in la fasaxo sababtoo tahay anaga waxaan waalidiinta meesha ka soo qaba iskoolka ardayda meesha dhigato
waxaan u baahanaa hadda si uu dhaqso badan insha Allah idinkiisa wixii Ilaahay laga toogo ayaa la helayaa saas darteed waxaan diyaar u nahay inaan sember u duceeyno idin macnaha cunaqabteeka laga soo qaado waayo maxaa dhaca caruurteena hadda saana u yaalin wax iskoolka ku geeyno ma hayno wax dhar u gad ma hayno waxaan ku caawin ma hayno sidaa darteed waxyaabo badan macnaha oo anaga aan haynin ayay hay'adda ay sii jirtay just we need for help our children as you see for 34 for just look the government is Germany we are asking for how to help him for always we are one we are believing at that time for always German we must take what that can be for just thank you okay عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا جو أهوي سوماليات أو أردي أو إديكتو سكولك الأنوار سكول أو إديكتو حدانة ويلو إدمي عيال كلنا إديكتان وحنكو بحي مهاي مركو علاسك إني نقد دافتو ومد أو هي ستو oo Soomaaliyeed inaan ujeeda laga dhaafo maskiinta ujeeda umada soo kulay jirtay ina oo maagtay dhibka laga dhaafo ilaahay iginkiis iginkaanan ahaan oo dhibka Soomaaliya waxa kan naga dhaafo oo ujeeda ardayga inaan ujeeda oo maagtay wax baashigooga iyo inta wixii nala sii jeeyo nolol daayo dhibkana laga dhaafo ilaahay iginkiis iginkaanan magacayga Maxamed Cabdiraxmaan Xasan kana socdo fasalka labaad waxaan ka codsanayaa dawladda Jarmalka inay culays ka qaado hay'adda Ansaar assalaamu calaykum magacayga Raawcadan Ibraahim oo ardayda dhigata iskuulka Anwar waxaan ka codsanayaa dawladda Jarmalka inay waxbarashadan noo sii daayaan u dhameystirano bismillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin salaan kadib waxaan ka mid ahay ardayda dhameystay sanadkan iskuulka sida la soo sheegay waxa jira culeysyo badan dawladda Jarmalka waxaan ka codsan lahaa in ay ardayda iga dambeeyay saanigu u dhameeyay inay u dhameeyaan culeyska ay salaad dulqaad insha Allah magacay waa Maxamuud Cabdiqaadir Cismaan waxa ay arday sanadkan qalin jawinaysa iskuulka Anwar waxa soo dhiganaya muddo 9 sano ah waxa ka codsanayaa dawladda Jarmalka inay culeys ka qaado si ardayda kale levelkiiga kale ayagana u qalin jawiyaan waxbarashada hore ay wataan